maamulka dowladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ayaa waxa ay shaaca ka qaadeen in degmada Raaso oo ka tirsan degmooyinka deegaanadaasi uu ka dhacay shir ku saabsan guud ahaanba horumarka iyo nabadda iyo sidii loo horumarin lahaa bulshada aagaasi ku dhaqan. warbixin arrintaasi ku saabsan waxa inoo soo diray wariyaheena Axmed Kaabo. iyadoo waqtiyadii u dambeysay ay degmada Raaso ay ka socdeen hawlo isugu jira dhinaca nabadgelyada horumarka iyo ka qaybgalka dadweynaha ayaa mid ka mid ah madax dhaqameedyada ugu waaweyn beesha reer Cumar ee ka soo jeeda degmada Raaso oo lagu magacaabo Sheekh Dawaaf Sheekh Cumar iyo Maxamed Faarax oo ka mid ah aqoon-yahaninta iyo Sheekh Axmed oo isaguna ka mid ah culimada ugu waaweyn reer Cumar ayaa waxa ay ka warbixiyeen xaaladaha u dambeysay ee degmada Raaso. saad ogtihiin beesha reer Cumar muddo dheer ayay waxay ku sheeganaysay in ay xuquuqdoodii ay la'aayeen waxayna ahayd arrin dhab ah oo waxba ka jiray waxa ku dhacay barakac iyo geedi waxay degeen meesha la yiraahdo Raaso haba sii deganaadaan qayb fara badan oo muddo fara badan deganayd laakiin way ku soo bateen waxayna ka sheeganayeen xukuumadihii hore ee dawladda deegaanka Soomaalida maadaama xukuumadeena cusub uu hogaaminayo Cabdi Maxamuud Cumar hadda iyo xisbigiisa iyo kamaneedkiisa iyo baarlamaanka dawladda deegaanka Soomaalidu ay go'aansadeen in ay xal u helaan qabiilka reer Cumar la yiraahdo degmada Raasana si sharci ah ay degmo u noqoto way dhacday arrintaasi degma la siiyay miisaaniyad baa loo qabtay dhaqaale fara badan baa in la geliyo dawladdu go'aamisay degmadiina waa la geeyay wayna shaqaynaysaa haddii aad weydiiseen wax fara badan ayaa qabsoomay waxa kamid ah haddii dawladii saaka way shaqaynaysaa degmadii baa shaqaynaysa maamulkii baa shaqaynaya ciidamadii booliska shaqaynaya ee amniga waxa maxaan ku idhaahdaa dakhligii iyo limaadkii iyo canshuuraadkii baa yaa soconaya oo dhaqaalihii dhaqaalaha oo dhan baa shaqaynaya marka Raaso waa degmo sharci ah in hadda ka hor ballanqaad ay la galeen xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida ugu horeeyay madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar loo hirgeliyay taasoo ahayd in laga qayb geliyo 4 council ama